السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابنا qiimaha iyo qaayaha le isku soo naqasho wacan waa mar kale iyo arrimaheena iyo masaaxiibkiina xasan kale ayuu la isku soo socon waxay inahay su'aalaheennii aqoonta guud ahay diini iyo wax walba isku jira marka noo bilaab barnaamijkeena isku soo naqasho wacan su-aasha koowaad waa su-aal diiniya su-aasha iyo jawaabteeda waa laidin wada sii doonaa insha allahu tacaala sheegaa lagu yidhi sanadkii uu daa'if nabigu u baxay sala allahu alayhi wasalam miilaadiyoodu may qomaray yaa miilaadi ahaan u sheeg hadda waxaa la marayaa 2019 bisha 10aad oktoobar alla maroo haya magaxay ahaaday jawaabta wax yar kadib balinsiinaya jawaabtu tana waxay noqonaysaa 619 ahayd miilaadiyada meeqa su-aasha kale waxaa waaye sheeg meeqa maalmood ayuu daa'if ku sugnaa nabigu sala allahu calayhi wasalam meeqa maalmood buu daa'if ku sugnaay daa'if meeqa maalmood buu ku sugnaay daa'if wuxuu ku sugnaa nabigu sal allahu alay wasalam 10 maalmood ayuu daa'if joogay okay 10 maalmood nabigu daa'if joogay sal allahu alayhi wasalam sheeg su-aasha kale waa tana sheeg gaalkii dilay
شيء قال سود النبي صلى الله عليه وسلم مركي سورة النجم اللي قصد الجاي واعبد ربك واسجدوه مركو نبي سجودي قال انه سجودين الا هل قال ديدي دابا شي قال كسميس قال كسميس على عقبة من معيد عقبة من معيد الله قال كجيد السجود اوكي بعد كل هذا هي سؤال شكله sheeg meeqa jir buu ku dhintay abu cubayda caamir binu jaraax hal sakan kadib abu cubayda caamir binu jaraax wuxuu ku dhintay 58 sano isagoo jira wuxuuna ahay janaraalkii hogaaminayay wasiirka gaashaandhigga ee khilaafada cumar bin khadaab xilliguu dhimanayay daacunka uu dhintay waa shahiiday abu cubayd caamir bin jaraax waa saxaabigii dilay aabihiis oo gaal ah oo diinta ilaahay kasoo horjeeda yaa ilaahay iyo rasuulkiisa la dagaalamaya uu dilay waa kii ilaahay kusoo dejiyay aayadda qur-aanka uu soo hajin aabaahum xataa waxay suuratul ilaahay kusoo dejiyey waa amiinu haadihi umma saxaabi lagu magacaabo haddaba su-aasha kale waxay ku leedahay meeqa jir buu ahaay ku dhintay mucaawiya bin abi sufyaan meeqa jir buu ku dhintay mucaawiya bin abi sufyaan radia allahu canhu wuxuu ku dhimayey 70 jir buu ahay markuu dhimayay allah raalli ka ahaadee mucaawiya bin abi sufyaan wuxuu ku dhintay 78 sano اوكي su-aasha kale waxay ku leedahay sheeg xaaskii cusmaan bin cafaan markii la dilayay labadii gabdhood nabigu dhalay sallallahu alayhi wasallam iska dhaaf waxay ka dhinteen nabigu joogo oo nool ay ka dhinteen haddaba cusmaan bin cafaan markuu dhimanayo wuxuu jiray 80 iyo dhowr sano 7 sano jiray markii la dilay haddaba xaaskii uu joogtay ma isa shak magaceedu waxaa la dhahaa farafisa la dhahaa naaila bintu farafisa magaceedu su-aasha kale sheeg magaca boqor najaashi waa ardu xabash maamulay oo u hujirooday saxaabada u hujrootay haddaba sheeg boqorkaas magaciisa sikin kadib boqor najaashi ama maqashiin magaciisa saxda waa masxama ala dhahaa magaciisa saxda boqor najaashi su-aasha kale su-aasha kale waxay ku leedahay dagaalkii beder wuxuu ku bilowday mubaariso haddaba waxaad sheegtaa saddexdii ugu horeysay saxaabi ee safka muslimiinta ka soo baxday 3 saxaabi qaali ahaayeen haddaba magacyadooda sheeg
jawaabtu waxa waaye cali bin abi daalib oo nabiga waxay ahaatay ahlu beyt ka mid ah, iyo xamse bin abi daalib oo isaguna nabi adeerkiis ah, iyo waxa waaye cubayda binu xaaris, cubayda binu xaaris. saddexdaas saxaabi waaye. okay, halkaas caaw nagu joogayaan su-aalaheenu insha allahu tacaala iyo jawaabihiinu waa mahadsan yihiin, waqtigaan ugu dheeraada.